السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada qaaliga waad salaamay meel kasta dunida ka joogtaan waa walaalkiin xuska isku soo wanaagsan muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay waxa isleegi doonaa youtuberka caanka ah Dirisla Cabdi iyo lacagta uu ka sameeyo YouTube channelkiisa sida ogtihiin ba youtuberada lacag ay ka sameeyaan YouTube channelka laakiin inta badan ma arkaysid youtuberada Soomaalida ayagoo soo bandhigayo lacag ay ka sameeyaan YouTube channelka ayagoo maartay dhiirigelinayo walaalahooda si maartay ayagana ay uga faa'iideystaan fursadahaas amala marka anigoo maartay waqti gelinayo muuqaalkan waxaan maartay rabaa inaan ka faa'iideeyo in maartay aad idinkana idinku dhiirigeliyo si maartay YouTube-ka aad maartay uga shaqeystaan sidoo kale aad lacag uga sameysaan maartay marka waxaan isleegi doonaa youtuberka Dirisla Cabdi muuqaalo kale hore aan soo sameeyay ayagana way jiraan sidoo kale waxaan soo sameeyay Sharma Boy ma soo sameeyay lacagta uu ka sameeyo YouTube channelkiisa sidoo kale waxaan soo sameeyay Asad Xaaji sidoo kale muuqaaladaas way ku jiraan oo la soo daawado sidoo kale fadlan waxaan ku codsanayaa markii ku horeysay haday tahay ay channelka soo booqatid waa ku soo dhaweynayaa waxaan si sharaf leh ka codsanayaa inaad martay channelka subscribe noo saartid sidoo kale maartay la wadaagto saaxiibadaada like-tana noo saartid aad iyo aad ay muhiim u tahay marka soo dhawaada waxaan isleegi doonaa Dirisla Cabdi sida u jeedaan waxaan ku jira ciwaanka Dirisla Cabdi midka saxda ah ay ku xiran tahay 1 milyan sawirkiisa ayaan u saaran waa u jeedaan Dirisla Cabdi marka waxaan isleegi doonaa lacagta uu ka sameeyo Dirisla Cabdi YouTube channelkiisa anigoo maartay rabo maartay inaad dhiirigelin maartay ku dhiirigeliyo in maartay YouTube-ka lacag laga sameeyo inta badanna walaalaheen maartay youtuberada oo lacagta ka sameeyaan ay u soo bandhigin maartay YouTube-ka in ay lacag ka sameystaan ayagana ay furtaan YouTube channel si maartay ayagana maartay heer uga gaaraan marka youtuberada walaalaheen kuwa weyn maartay sida Dirisla Cabdi iyo maartay Asad Xaaji iyo maartay waxaan maartay aan kula talin lahaa maartay inay u soo bandhigaan maartay YouTube-ka in lacag laga sameeyo si lacag looga sameeyo si maartay walaalahooda maartay ayagana fursadahaas ay uga faa'iideystaan marka saa u jeedaan waxaan ku jirnaa ciwaanka Dirisla Cabdi waxaan isleegi doonaa lacagta uu ka sameeyay marka saa u jeedaanba Dirisla Cabdi wuxuu soo galiyay muuqaalo gaarayaan in ka badan 1400 iyo ilaa 50 iyo 8 ay soo galiyay halka Dirisla Cabdi ay ku xiran tahay 1 milyan iyo 7,700 qiyaasaya muuqaalada views-kooda inta uu gaarayo waxa waaye in ka badan 1 milyan iyo 50,000 oo views ah halka channelkiisa qaybta ay tahay entertainment ciwaankan oo la sameeyay June taariikh 5 2017 marka hadii aan isla eegno grade-kiisa waa grade B waaye halka nambarada idinka muuqda muhiim ah waa nambarada uu kaalinta uu kaga jiro ciwaankan oo aan hadda isticmaalayo aan ku eegayo website-kan wuxuu kaga jira kaalinta 280,000 oo kaga jira dadka maartay ugu saameynta badan lacagta badan ka sameeyo wadanka Australia wuxuu kaga jira kaalinta dadka ugu saameynta badan lacagta badan ka sameeyo kaalinta 41 halka qaybta entertainment-ka uu kaga jiro kaalinta maartay 1,000 iyo 1,000 ay kaga jira muuqaalada uu soo galiyay 15 cisho u dambeysay muuqaaladaas ayaan isla eegi doonaa insha Allah muuqaaladaas iyo taariikh 21 bishii 23 ilaa iyo taariikh maanta oo ah 3 bishii 9 marka muuqaaladaas lacagta uu ka sameeyay isla eegi doonaa intaanan isla eegin lacagta uu ka sameeyaa bil kasta muuqaalka u horeeya hadii aan idin soo qabto oo ah taariikh 21 bishii 8 muuqaalkaas oo maartay lacag uu ka sameeyay lacagtiisa wax baa ka qaldan muuqaalkaas ma saxsana ay kan labaad ayagina oo taariikh 22 maalinka talaadada muuqaalkaas views-kiisu uu gaarayo 170 iyo 137 halka muuqaalkaas uu ka sameeyay lacag ugu yaraan $34 ilaa iyo $549 halka muuqaalka xiga aan isleegi doono oo ah views-kiisu gaarayo 126,000 halka muuqaalkaas uu ka sameeyay ugu yaraan $32 ilaa inta u dhaxayso $504 marka lagu leeyahay marka wuxuu ka sameeyay $32 ugu yaraan ilaa iyo $504 macnaheedu ma inuu ka sameeyay $32 laakiin wuxuu ka sameeyay inta u dhaxayso $32 ilaa iyo
$504 marka waxaa dhici karta inuu ka sameeyo muuqaalkaas $100 waxaa dhici karta inuu ka sameeyo sidoo kale 200 mise 300 mise waxaa dhici karta inuu ka sameeyo 400 ilaa iyo inuu ka sameeyo $500 ayaa dhici karta marka waa inta u dhaxaysa 32 ama 34 ilaa iyo $500 inta u dhaxaysa marka muuqaalada xiga aan fiirinaynaa waxaa jira muuqaal kale viewskiisa uu gaarayay ilaa iyo 30,000 halka muuqaalkaas uu ka sameeyo ugu yaraan $8 ilaa iyo $122 waxaa isla eegi doonaa weliba kuwa kale waxaa jiraan eber ugu jiraan marka waxaa jira muuqaalkan taariikh 27 bishii 8 viewskiisana uu gaaraya 200,000 wuxuu ka sameeyey $50 ilaa iyo inta u dhaxayso $800 waxaa isla eegi doonaa muuqaalka kale oo 29 bishii 29 keeda bishii 8 uu ka sameeyey $22 ilaa inta u dhaxayso $355 halka viewskiisa muuqaalkaas uu gaaraya in ka badan 88,000 muuqaalka xiga aan isla eegi doonaa uu ka sameeyey $19 ugu yaraan ilaa iyo $297 halka viewskiisa muuqaalkaas uu gaaraya 74,000 muuqaalka xiga aan isla eegi doonaa oo ah laba wuxuu ka sameeyey $11 ilaa iyo $174 ugu yaraan halka viewskiisa uu gaaraya 43,000 in ka badan marka muuqaalka u dambeeya oo ah taariikhda maanta Sunday axadda oo live ku tusay macnihiisa waxaa viewska wali uu socda in ka badan waxaa daawatay muuqaalkaas 100,000 lacagta uu ka sameeyay waxaa waaye $25 ugu yaraan ilaa inta u dhaxaysa $400 marka waa sidaan idin sheegayba markasta waxaa ogaataa lacagta marka lagu leeyahay ugu yaraan $25 maaha inuu macnaheeda tahay $25 uu ka sameeyay lacagta uu ka sameeyay way ka badan tahay waa inta u dhaxayso ilaa iyo $400 ilaa iyo $25 marka waxaa dhici karta inuu ka sameeyo xataa $400 inuu ka sameeyo mise $300 mise $200 marka haddii aan hoos u sii dhaadhaco waxaan isla eegi doonaa daily average macnaheedu waxaa waaye ugu yaraan maalinkii waxaa soo raacda mise ciwaankiisa soo dad cusub oo ku darsadaan 334 maaragtay halka viewskiisa maalin kasta uu gaarayo 38,000 halka maalin kasta lacag uu ka sameeyo ugu yaraan $10 ilaa iyo inta u dhaxayso $150 usbuuc kasta waxaa soo raacda Dirisla Cabdi ciwaankiisa 2,000 oo qof ayaa ku darsata usbuuc kasta halka usbuuc kasta ay viewskiisa uu gaarayo 267,000 halka usbuuc kasta lacagta uu ka sameeyo ay gaarayso inta u dhaxayso $67 ilaa inta u dhaxayso $100 marka hadda qiyaas ahaan waxaa lagu leeyahay waa ugu yaraan $67 ilaa inta u dhaxayso $100 marka lagu leeyahay weekly usbuuc kasta waxaa dhici karta marka ugu yaraan inuu ka sameeyo $100 marka 30 cisho u dambeysay ciwaankiisa Dirisla Cabdi waxaa soo raacday misana ku darsatay 10,000 qof halka viewskiisa 30 bari la soo dhaafay mise bisha hadda u dambeysay oo viewskiisa uu ka badan yahay 1 milyan ilaa 100,000 lacagta uu ka sameeyana bishii haddaan soo bil kasta ay garan ay gaarayso $287 ilaa iyo inta u dhaxaysa $4,600 marka haddii aan isla eegno lacagta uu ka sameeyo Dirisla Cabdi bil kasto waxaa weeyaan $287 ugu yaraan ilaa inta u dhaxayso $4,600 marka lacagta Dirisla Cabdi uu ka sameeyo YouTube channelkiisa 1 milyan ay ku xiran tahay waa ugu yaraan $287 ilaa inta u dhaxayso $4,600 macnaheedu waxaa waaye maaha inuu $200 uu ka sameeyay laakiin waxa uu ka sameeyay in ka badan ilaa inta u dhaxaysa $4,000 marka waxaa dhici karta inuu ka sameeyo bil kasta sidaan hoos ku soo aragnay ugu yaraan $1,000 ilaa $2,000 iyo weliba ka badan dhici karta marka waxaan isleeyahay doonaa ugu yaraan sanadkii waxa uu ka sameeyaa ugu yaraan $3,000 ilaa iyo $55,000 waa sanad walba lacagtaas ayuu ka sameeyaa Dirisla Cabdi waa ugu yaraan $3,000 ilaa iyo $55,000 marka macnaheedu lagu leeyahay ugu yaraan 3,000 waa ay ka badan tahay waxaa dhici karta inuu ka sameeyo 5,000 6,000 ilaa iyo 10,000 ilaa inta u dhaxayso maartay 50 iyo 5,000 marka daawade muuqaalkeena halkaas ayuu ku eegahay maanta anigoo maartay aad iyo aad ku mahadcelinayo fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo jalka soo booqato waxaan si sharaf leh kaga codsanayaa inaad jalka subscribe noo saarto si maartay aan maartay dhiirigelin inuu noqoto maartay muuqaalo badan ay soo gudbiyo sidoo kale like-tan ayadana maartay waxay naga caawinaysaa waxa la yiraahdo algorithm-ka fadlan muuqaalka like saara sidoo kale la wadaaga asxaabteena
muuqaalka xigo waxaan kusoo qaadan doonaa sidoo kale youtuber kale maartay next waxaan ka dhigi doonaa gabar aan ka dhigi doonaa marka fadlan gabadhii aan ka dhigi lahaa aan ogaan lahayn maartay lacagta ay ka samayso YouTube channelkeeda waxaad noogu soo qoraysaa qaybta commentiga intaan muuqaalka xigo kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.